si loogu tartami kara kursiga hoolka markaa galnay aan aragnayna in qodbooyinka ay jiidsada kali ah kana soo baxaan nala jujumay nala dilay awoodna loo sheeganayo maxaa Cabdullaahi Farmaajo markuu Cabdiraxmaan Shukur qaylinay ma taal qaylinay xasan cali khayro oo dalkii dadka dhalinyarada garabna siiyay noo kacay wax walba noo sameeyay la saaray todoba midid la saaray waan yaabanay dadkan maxay la qaylinayaan banaanka u taagay madaxweyne shoore qof walba wuu yaabana laakiin waxaan ogaanay qofka markuu noqonayo mucaarad banaanka loo saarayo in asaga la kasbanayo qofkaas in la dilo la tuubo wuxuu yahay loo diido xilkiisa loo diido wuu soo jeesanayaa xor bay ahaanaya maanta maxaa Cabdiraxmaan Shukur iyo Mahad Salaad iyo Xasan Cali Khayr waxay ku banaan baxayeen wadooyinka u taagnaayeen maanta aan u qora anigoo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Galgaduudna saacadan xilka gudoomiyaha dhalinyarada gobolka waa iska casilay anoo jooga caasimadda waa iska casilay waa iga banaaya waa iga madaxa qof kasta oo dhalinyaro oo ku nool Galmudug waxaan u sheegayaa intii iyo joogto gabadh uu kansaday Raysala intii uu joogo Farmaajo wax hormar iyo wax hami iyo wax higsi maanta u soo doonamayno aniga Galmudug maanta iga dhamaatay markii arkay gabdhii yarka qurbaha ka yimid oo hamiga laha oo higsiga laha sida loo bahdilay oo u bahdilay gabadha walaashiisa oo jeebkiisa gabdhaha kale uga ixanayo maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo gabadha maanta la doortay Galmudug higsi ayaan ka lahaa boqorad ayaan ka ahaa maanta waxaan sugaayay laba sano socota inaan u sharaxo xilmaanka Galmudug laakiin inta Farmaajo ku soo noqonayo ama ra'iisul meesha joogto uma baahni aniga saacadana gudoomiyaha gobolka Galgaduud ra'iisul qofkii soo qoranaysa joogtada u soo qorto aniga reer dalal baa raal magan dalal baa ra'iisul ala maga baa almagan chief alana anaga markaan nahay bihina guulad chief noo sooca agtuna saara Cabdullaahi ala magan buusiya gudoomiyaha degmada Caabada waa Cabdullaahi ala magan maxaa dhahay maxkamadda Caabud waa ninka joog Burhaan Dalmay Cabdullaahi ala magan taliyahana soo Caabud Cabdullaahi ala magan maanta ra'iisul Cabdullaahi ala magan xilmaanka Galmudug Cabdullaahi ala magan Cabdullaahi ala magan ayaan xilkeenii iyo dhalinyaradeennii iyo hamigeenu uga baxnay igu faanay maanta waan ku xirayaana wali waan qaylinaya jirka u dugushay iyo barbaraha u sameysayna waan qaawinaya waan soo dhigayaa inta aan ka baqay maayo saacada hadii wax la ii dhimo la ii dilo ciidanka Galmudug joogay ciidanka Farmaajo qoqor baa idilay bismillaahir rahmaanir rahiim Allahu akbar meeshii horta doorasho dhan waa halawday laakiin waxa ugu daran koonfur galbeed iyo Galmudug nin Mooriyaankii Madoobe Axmed Qorqor too dhigay taariikh bay noqonaysaa diiwaanka lagu gelinayaa taariikh weyn oo iskuulada lagu dhigay noqonaysaa Galmudug oo dhan laba nin baa doorasho gashay waa Cabdiraxmaan Shukur oo Turkiis siiyeen iyo Jacfar oo Turkiis siiyeen inta kale waxa boobay Qorqor baa boobay anigu shalay waan yaabanaa markay Xasan Cali Khayr iyo Cabdiraxmaan Shukur iyo Mahad Salaad ay Farmaajo ku banaan baxayeen ka soo horjeedeen dadka asaga meel xun geysto isaga fogeysto waa mid annaga maanta haysato war annaga shalay waxaan ka cabsanayna oo ka jaakireyna dad eheladeena nin ehelkeena inta u soo qaawin inaan ka hor imaano oo villadaas ha ku jiro ee nooga badneed maanta si asaga intuu u bareeray oo marada iskaga dhigay inuu gorgorada gabdha walaalihiis uu tuna xigsado tuna banaanka uu dhigo xagee lagu arkay madaxweyne dhan oo kursi intuu shalay yiri waad u tartami kartaan maanta dhahayo hiblaaye u xiran tahay kursigaas naagahaas jaqjaqdooda hala iga saaro oo uu gatay gudiga khilaafaadka oo uu gatay gudigii doorashooyinka oo uu madaxweynihii heer gobol uu isaga gatay xagee lagu arkay gabdho masaakiina in doorashadooda laga celiyo lagu hor jijiido aniga maanta khudbadii aan ka soo jeedinay xitaa kaamirooyinka laga dansaday
oo aan la duubin oo hoolka anoo dhex taagan darbo banaanka la iiga soo saaray oo hadli karin oo la iigu daray waliba hanjabaad in la xiraayo aniga halkan waxaan ka codsanayaa oo ka cadeynayaa ra'iisul wasaaraha dalka inuu tilaabo sharciya kursigaas ka qaado kursigaas doorashadiisa maanta hal naag baa u xaadirtay oo loogu wada riday yaa u ridaayay matqaana waa hooyadeed miduu dhalay miduu aabaheed dhalay iyo 4 askari oo banaanka joogta dadkii masaakiinta ahaayeen oo kuraastan xaq u lahaayeen oo u imaadeen inay codeeyaan war dad masaakiin oo baahan baa guryaha intay galeen oo guryahooda wixii yaala ay soo baxsadeen bay guryo aysan awoodin xataa kireysteen xagee lagu arkay nin dadkiisa eelkiisa saas u dhibaateynaa xagee ka dhacday allah wagar dadkii lahaa farmaajo waxaan baafinayaa ninkii la daahir amiin joosow aan baafinayaa cabdiraxmaan baylaan baafinayaa barow sardalxaan baafinayaa ibraahim yarow yaa arka ma lahayaa maya waaya cali jeeb ku jira wasiirkii amniga gobolka banaadir xaguu ku dambeeyey shalay waxaa igu wardamay soo waxaa ii diiday inaan ka dhoofo garoonka qorqoore wabaa ka daro dibadhal qabyaaladii farmaajo say u socotay ay ummadda soomaalidu aafaynayso isaaq ula dagaalayo ogaadeen ula dagaalayo hawiye ula dagaalayo majartay ula dagaalayo maryaxaan u kala guraayay howrarsamaya raggoodii u layahay ugu tooganayay mataqaanaa gobolka gedo waxay ku soo biyo shubatay reer diin intay ka timid reer dalal buu kala qaybiyey gabdhihii reer warfaa dalal oohintooda yaa arkay waa taariikhda markii ugu horraysay oo kursigii beesha gabadhoo dhowaan walaalkii xasan farmaajo guursoo liyaado ra'iisul qorane oo ilma adeer yihiin reer cabdullaahi alamagana yow siiyey isagana waa madaxweynihii dalka guddoomiyaha cabudwaaqana waa reer cabdullaahi alamagan gabadha farxiyaha xildhibaanadana waa reer cabdullaahi alamagan ninkii halkaa qabyaaladiisa gaartay gabdhihii shalay u ooynayay dhiigga u shubayay ma ooyeen ma loo bixiyey gabdha ka oohiyey gabdhaha reer dal ninkii ka oohiyey diiwaanka ma loogu qoray farmaajo yaanan war idinku daalin qof kastoo cadaalad darro taageerta carabku wuxuu wari inuu ilaahay xaq gudaa waa ogaa laakiin in futo loo gudaa ma ogeyn reer dalalow amba dhamay qaraarkii waa inaad dhamisaa dho ma joogti dhab u fiirso dhab bal arka waxaa meeshaa dhacaya gabdhihii reer dal ugu quruxda badnaa laandheerayaashii reer warfaa dalal gabdhihii laandheerayaasha ahaa gabadhii $50,000 saa farmaajo u siisa doorashadiisay tiri baxi dalkii aad asoo waxba haysanoo bayhoofa abaaldarraduu ku dhigay cali jeeb ku jiray dalxo iyo ibraahim yarow iyo cabdiraxmaan bayle iyo daahir amiin jeesow ha ii dambeeyaane bal waxa meeshaa soo socda eega maxaa cabdullaahi farmaajo shalay markuuna dhahayo kursigu waa furan oo waa tartami kartaan uu qorqorna dhahayo kursigu wuu furan oo waa tartami kartaan oo ay lacagteena qarashka la soo gelinayeen oo dadka masaakiinta ah ay meeshan ku dhibaateysnaayeen bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa hani cabdigaas hani korlibax ahna musharax xildhibaan hob 053 walaahi horta maanta waxa dhacay waa wax aad looga xishoodo waa farmaajo gabdho ina adeeradiis ah in uu u kala eexdo oo uu kuraasta u kala 3 reer cabdilla alamagan ahna uu xareysto oo labo intuu lacag siiyo uu dhaho isku tanaasula 3 reer warfaa dalalna banaanka nala ku rafaadiyo oo hin aan meelaha la joogno walaahi waa wax aad looga xumaado anigu shalay waan yaabanaa markay xasan cali khayri cabdiraxmaan cabshakuur iimaha salaad ee farmaajo ku banaan baxayeen ka soo horjeedeen dadka asaga meel xun geysto isaga fogeysto waa mid annaga maanta haysato war annaga shalay waxaan ka cabsanayna oo ka jaakireyna dad eheladeena nin ehelkeena inta u soo qaawin inaan ka hor imaano oo villadaas ha ku jiro ee nooga badneed maanta si asaga intuu u bareeray oo marada iskaga dhigay inuu gorgorada gabdha walaalihiis ah uu tuna xigsado tuna banaanka uu dhigo
xagee lagu arkay madaxweyne dhan oo kursi intuu shalay yiri waad u tartami kartaan maanta dhahayo hiblaaye u xiran tahay kursigaas naagahaas jaqjaqdooda hala iga saaro oo uu gatay guddiga khilaafaadka oo uu gatay guddigii doorashooyinka oo uu madaxweynihii heer gobol uu isaga gatay xagee lagu arkay gabdho masaakiina in doorashadooda laga celiyo lagu hor jijiido aniga maanta khudbadii aan ka soo jeedinayay xitaa kaamirooyinka laga dansaday oo aan la duubin oo hoolka aanoo dhex taagan darbo bannaanka la iiga soo saaray oo hadli karin oo la iigu daray weliba hanjabaad in la xiraayo aniga halkan waxaan ka codsanayaa oon ka caddaynayaa ra'iisul wasaaraha dalka inuu tilaabo sharciya kursigaas ka qaado kursigaas doorashadiisa maanta hal naag baa u xaadirtay oo loogu wada riday yaa u ridaaya mataqaanaa waa hooyadeed miduu dhalay miduu aabbaheed dhalay iyo 4 askariyo bannaanka joogta dadkii masaakiinta ahaayeen oo kuraastan xaq u lahaayeen oo u imaadeen inay codeeyaan war dad masaakiin oo baahan baa guryaha intay galeen oo guryahooda wixii yaala ay soo baxsadeen bay guryo aysan awoodin xataa kireysteen xagee lagu arkay nin dadkiisa eelkiisa saas u dhibaateynaayo xagee ka dhacday madaxweyne dhan oo gabdhihiisii kala hiilinayo oo u kala eexanayo farmaajo anigu shalay nin qaran baa u maleynaysa maanta inuu nin qabiil yahay baa igu walaayo bilaayo tallaahi on arkaa والله شال رجي بان لي يا بايو دهاي فرماجو إلا ما وحو قشت أنا قدبكو نقول سمي يجينا نقول سمي قفك إلا ندنت عقص بس ما أنت هدون نكلا تأو عد كلا وماش استغنى لها وقبل ما يشرف بقدر بدي لها والقدومية قبل كهيستان حل بانكي قل مذوقها هيستان كيف فدرالك قدر ستين مدحوينه هي هيستان حقيقة كل عذاب وزير ذي هيستان حقيقة عالمك وقد عذاب إن سدح قبلنا أو حرس وسكمال أو يرتا سدحنا أو بنانك كوج جوبه قرش كان إنتي نجب حين أون رفعنا أون رفرنا أو ضد مساكين عن كاني أو النجي وحن أودنا إيه وحن أودين بقى قدرنا شلنا أو يري كراسته ويفرنتها من قبتها النجا وحن ديارنا دي جدي خلافات كلا قتي مش يجينه مو جنتاس وعجار لكن ماشي عن دور شك مدعين عدالتنا ما هين ما أنت وحي دعي كرسي جاسنا مدحوي رئيس الوزراء هدلك وحقعد سنينا إنه دب أقول نقضه دور شديس أنا حاضر ما أنت الباب بدنا لك صوب بحي أو عدين وهنا هو الحديث وحلي جسمينا ما فهمتي أنا ما أنت وحنا لك جلي وحقا معهن نلك أوهنسي أنا هذا أوهن ويبقى ما تي وحي هرب مجرته فرماجو markay dadka shalay dhahay ummadan Soomaaliyeed uma talin karo wallahi waa run koosmaanta arka dhaqanka anu shalay nin qabiil kuma taageereenin nin qaran baan ku taageeray Xasan Cali Khayr asagoo ra'iisul wasaaraha shalay marka aniga taageeray oo shafka u garaacay waxa ogaa value-gu uu leeyahay ee wadanka wuxuu u qabtay iyo meeshuu gaarsiiyay ma adigana sidoo kale aan kugu taageereynay waxa aafalatay wanaag ma ahan dadkaagi ehelkaagi aad basas u kala rifeysay ma Soomaaliya oo dhan baa u talin kartaa wallahi may uma maleynay alxamdulillah ilaahay waxa ugu mahadnaqaa indhihi shalay iga xirnaa inay maanta ii furneen oo wax badan oo deep down ku duugan inaan ogaado arkay aniga shakhsi ahaantayda ninkii gabdhaha tolkiisa ka oohiyay waxaasi ma dhagaheegay ahaayeen mise run bay ahaayeen gabdhaha hadlaayay ma gabdhihii reer dalalba intuu qabyaaladii ka timid maryaxaan oo reediina ka soo degtay reer dalal bay la maraysaa farmaajo yaa markaasay Soomaali tiri madaxweyne noo ahaa cadaalad 5 sano oo cadaalad baan ka sugayn ninka reer dalal u cadli fur gabdhii reer dalal u kala hiiliyay ee jufaniic u kala qaaday tollaay waxaas ma dhagahayga ma runba mariya waxaas ma runba mariya xagee maraysa sidee dareemay xagee maroysa waa ka داير أمين جيسو هلا بافيو ضلحو إيها سائر ساكا اللي يرادي وحالي نكي هيسي مكرو عدكي باحرا واشانيو توبانجير شغوعاني دالايو واشانيو توبانجير شغوعاني دالايو شرط لغا دابولو لغا ناراي شيدان ما قادي كرو أضاق تبرم بحايو والي تا أضاق نفتا هيسا نفتا
راقية عبد الرحمن بيلاني هاي سميه هسي برامبر كيف فرماجو سمي جري مركز على الشاربي وصاوكويا مركز على ويلك عليك جيب كجرا واسيدي قبرال ما درنو قباها لي هذه مركز على قرونك الديارة كما دوفي كره دبدي الطلب ميلو مبوف كره ومسير كي امني جنك هذا سايو يا فرماجو مركز على كريجي تريها الميسو أنا الميسة إبراهيم رواليري إبراهيم رواليري رادي إنك إبراهيم والله هلا مركز على أف ماي ما هنا محاكي واقع قوست هذا وكم هلا يمال مهان مركز على رادي سانواسو أي ما يفراسي ما يسوى هذا فرماج أهل النار واي مركز على فرماج ما أهل النار با أو ساسو ما دوين مي أهل النار باها مايك ما كسر دوغا هي ما يسوى هذا وحنا سكتي دايره من جيسو با وعي هلو حارانك كاش اديس هذا حارانك كاش فرماجو توك سمي جاي توك فرماجو توك قيانوله قاين فهد كورن قبل عافيه وديك الرباح انا اسوي غفا ودمهايا goormeed hadlaysaa daahir amin jeesugu waa xilli ay xeeriyo fandhaal kala dhaceen walaalkeeyow waa xilli lagugu shaqaysto gabadhaada igraan tahliil faarax adeerku waa hortaada lagu cunay sharafi dhimatay war ii raasha bal cali yaasiin gurbe cali yaasiinow nin reer dallaad ahayd kursigii ka waran ilaahow tawba intaan eri ilaahow tawba intaan farmaajo ammaanon difaaca ilaahow tawba ilaahowga cafi قائن بوا قائن هذا ما لقى يا أبا على الجيب كجرا كرادنا إيه إنا مدحوين كحيون نقط ما أنا والدك والوالم بدي جو شيء كيني صداهره شرف الدمت ورمضا وتين وسيرك عدالة بوغرام كو كسبي أحمد قرقر وحي يقصر كبناء عن داودوي كنت اللغة بوكو الله وأنا في صومالي أخريك وموريان كمدو شرف الدمت dowladnimo waxaa god weyn ku rida cabdicays lafta garaniyay axmed qoqor laakiin waxa baa idin sheegaya maanta soo ma aragtaan waxa ku dhacay dalxo cabdiweli muude sida loo gal ma aragteen ibraahim yaro ma aragteen cabdiraxmaan beyle ma aragteen daahir amiin jeeso ma aragteen wallaahi oo bilaa wax ka xun baa ku dhacay axmed qoqori lafta gareen qof kasta oo weelka cadaalad darrada qaada ayada isku gudinayso ee balintaan warkeeda ka daayo aynu gabdhihii reer dalla quruxda badnaa ee dhuusamarab shar ku ooy hoolka dhexdiisa jareer baa u codaynaysa bah ogaadeen xildhibaankooda jareer iyo raxan weyn iyo askar iyo sacad iyo saleebaan iyo mursada u codaynay laa ilaaha iyo biyamaal laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah taariikh baa la qoro wallah war maamidi lahay reer dallow farmaajo wax micnaa ma laha waxaani waa qof dhoohan oo qabyaaladii looto qurna midan lahayn war midan lahayn kaligii taliye weeye war midin lahayn waa dhaadhaan war midin lahayn waxaan wax micnaa male idinku ma nagu diidaysan tolkayo bal aynu sii daawana gabdhihi galmudug higsi ayaan ka lahaa boqorad ayaan ka ahaa maantii waxaan sugayay 2 sano socota inaan isu sharaxo xilmaanka galmudug laakiin inta farmaajo ku soo noqonayo ama ra'iisul meesha joogto uma baahni aniga saacadaana gudoomiyaanada gobolka galgudug ra'iisul qofka bismillaah magacaygu waa hodan aaran cigaal aana gudoomiyaha dhalinyarada gobolka galgaduud waxaan ku suganahay maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug saakay waxaan aadnay u dareernay kursigii aan lahayn oo xaq aan lahayn waxaa jirtay inay isu soo sharaxeen 7 gabdhood oo qaas reerka farmaajo aan ka dhalanay gabdhahaas markii maxamed abdullaahi farmaajo la joogeen xamar u tageen mid walba wuxuu yiri hore u soo kursigu ku furan yahay caasimadda markay yimaadeen waa la soo dhaweeyay hami iyo higsi bay lahaayeen kursigu waa la hakiyay shalay galab ayaan waxaan ka war helnay facebooka kursigoo yaala oo lii waa tartan oo la soo furay anigu waxaan kamid ahaa ergooyinka qaarkood waxaan ahaa kaambeender waxaan ahaa hani walaashay garabkeeda waxaan sugaynay xataa inuu 5 qof 6 qof ay codayso xalay waxa la sameeyay in la bedelo ergadii la geeyay 4 warqadood oo kala nooc ah haba la geeyay xataa warqad buu korsanaan waay waxa dhacday
saakay markaan hoolka tagnay in la diido dadkii xataa la diido soconaya inay galaan waxaan galna gudaha waxaa la diiday xataa in codkii qofka uu hadlaayay in loo siiyo xor waxaa soo galay hani waxaa soo galay fahma waxaa soo galay dadka labada kale ee watay farmaajo labada farmaajo wato waa walaalihiis dalal maaha alla magan maaha waa cabdille waxa ayaan darra ah oo ayaan darra ah oo ayaan darra ah aniga dadka maanta la dilaa gabadha markay hadashay oo booday tir codkayga waan leeyahay si la igu gudbi karaa waa sax waa musharax xildhibaan maxaa laga rabaa marka askartii dadku ku idhi ayaa la jujuumay ayaa la garaacay ayaa laga saaray hoolka laga soo bixiyay miyaan aniga dulmuqraadi ahayn miyaan haldi karin miyaan aan dhigi karin waa sax qofkan wuxuu leeyahay kursigu xaq u leeyahay ha ka hadlo marmalas caburinaya warso in kursiga iyo kuraasta حتى قفك يعني لسين عد بيانا هلا سيو هلا قد ما يستي لكن روحه إنه هاللي كرو ساكا واحد جري كرسي مع عبد الرحمن عبد الشكور كاميروين يا موبايل دوك فري بياي waxaan galana kulan chief ana ku jiray mobilada waan duubanayna markii kursiga aan la galay maxaa loo dibay kaamirooyinka mobilada maxaa loo dibay mobilkayga waxa ku duubay waa la iga jibi waa kaas markii la iga raacay la jibi oo aniga la itimaay awooda la ii sheegtay murqaha jirka la iga sheegtay ninka anagoo la dhalanay oo qaas ah na kala saari waay oo dhii waayay inta la soo hadal gabar walba kursigan qof faan siistay heblan siistay iga tanaasula wixii inaga baxay waa siiniya ama caafis waa wax la yaqaan gal hoolka waa inii furayeen hatta beenta kaaga daran waxa la soo dhigay shargal baa la yiri kursi wuu funay war maxaa kursi ku furnaa Soomaaliya ina aqal la adiid ina aqaliga inaga dusan yahay kursi waa furan yahay la yiri ergaan naag xarisata ayada maxaa la shaqaalaheedu guriyaha u joogay iyo dadkii dhashay ayada walaalaheed hooyada aabe elkeed ah si loogu tartabi kara kursiga hoolka markaa galnay aan aragnayna in qodbooyinka ay jiidsada kali ah kana soo baxaan nala jujumay nala dilay awoodna loo sheeganayo maxaa Cabdullaahi Farmaajo markuu Cabdiraxmaan Shukur qaylinay ma taa qaylinay Xasan Ali Khayro oo dalkii dadka dhalinyarada garabna siiyay noo kacay wax walba noo sameeyay la saaray 7 midid la saaray waan yaabanay dadkan maxay la qaylinayaan banaanka u taagay madaxweyne shoore qof walba wuu yaabana laakiin waxaan ogaanay qofka markuu noqonayo mucaarad banaanka loo saarayo in asaga la kasbanayo qofkaas in la dilo la joobo wuxuu yahay loo diido xilkiisa loo diido wuu soo jeesanayaa xor bay ahaanaya maanta maxaa Cabdiraxmaan Cabdi Shukur iyo Mahad Salaad iyo Xasan Ali Khayri waxay ku banaan baxayeen oo wadooyinka u taagnaayeen maanta aan u qora anigoo ah gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Galgaduud saacadan xilka gudoomiyaha dhalinyarada gobolka waa iska casilay anoo jooga caasimada waa iska casilay waa iga banaaya waa iga madaxa qof kasta oo dhalinyaro oo ku nool Galmudug waxaan u sheegayaa intii uu joogto gabadh uu kansaday Raysala intii uu joogo Farmaajo wax hormar ah iyo wax hami ah iyo wax higsi maanta u soo doonayno aniga Galmudug maanta iga dhamaatay markii arkay gabdhii yarka qurbaha ka yimid oo hamiga laha oo higsiga laha sida loo bahdilay oo u bahdilay gabadha walaashiisa oo jeebkiisa gabdhaha kale uga eexanayo maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo gabadha maanta la doortay Galmudug higsi ayaan ka lahaa boqorad ayaan ka ahaa maanta waxaan sugaayay laba sano socota inaan u soo sharaxo xilmaanka Galmudug laakiin inta Farmaajo ku soo noqonayo ama ra'iisul meesha joogto uma baahni aniga saacadana gudoomiyaha gobolka Galgaduud ra'iisul qofka soo qoranaysa joogtada soo qorato aniga reer dalal baa raal magan dalal baa ra'iisi ala maga baa almagan chief alana anaga markaan nahay bihina guulad chief noo sooca agtuna saara Cabdullaahi ala magan busiya gudoomiyaha degmada Caabada waa Cabdullaahi ala magan maxaa dhahay maxkamadda Caabud waa ninka joog Burhaan Dalmay Cabdullaahi ala magan taliyahana soo Caabad Cabdullaahi ala magan maanta ra'iisul Cabdullaahi ala magan xilmaanka Galmudug Cabdullaahi ala magan
cabdillah alla magan ayaan xilkeeni iyo dhalinyaradeennadii iyo hamigeenu uga baxnay igu faanay maanta waan ku xirayaana wali waan qaylinaya jirka u dugushay iyo barbaraha u sameysayna waan qaawinaya waan soo dhigayaa inta aan ka baqay maayo saacadda haddii wax la ii dhimo in la dilo ciidanka galmudug joogay ciidanka farmaajiyo qoqor baa idilay waxaan u dirayaa baaq gabdhaha Soomaaliyeed oo soo yaacaya ku haya xil baan raadinaynaa eelkeenana aadaynaa waxaan leeyahay lacagtina haysta intuu ninkan meesha fadhiyo qabyaalaystaha oo annaga maanta la dhalanay naga oohinaayo oo naga eexanayo qofkii Soomaalina waxa leeyahay qofkii cadaalad ka sugaayo annaga la dhalanay ayaa kursigeeni ayuu cadaalad ka siman waay wax cadaalad sugunina waxaan kala baaq u dirayaa dadka magaalada dhooban ergada oo muuska ku jira miiska ku jira naftu maray go'daa mar Allah ayaa ku abuurtay ha ka baqin runtaadana ha ka baqin banaanka soo istaag qofkii idii laha mucaarad bata maxaafid ay taayna saak go'ayga garab ku isaaraya taabta noo dhaqantaa farmaajo ku dhaqmayna meesha aad nageysana baan ku geynaynaa kuma baahni